dhowr iyo toban qodob oo ah sidaynu ilaahay uga edabsanayno ayaynu xusi doonaa si aynu u fulin karno wixii aynu ka soo warramaynay khudbadii hore ee ahaa waajibaadka qofka laga doonayo sida ilaahay looga edabsanayo waxa kow ka ah in xaqiisa aynu siino subxaanahu wa tacaala mucaad buu nabigu la hadlay wuxuu yidhi atadri ma xaqu llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah mucaadoo ma taqaana xaqu ilaahay addoomaha ku leeyahy iyo xaqa ilaahay addoomuhu ku leeyahy xaqu ilaahay addoomaha ku leeyahy waa inay keligii caabudaan oo wax kale aanay barbargelin wax waloo ilaahay uu nafarayana had iyo jeer waa kuu horreysiiye markuu rasuullada dira kaasuu faraa markuu inala hadlaya kaasaa u horeeya wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a waxyaabuhu ilaahay gaarka u leeyahy isaga aan la barbargelin wax kale waa in laga daayaa istusnimada iyo ismaqashiinta oo waxaa la yidhaahdo ashirk shirkiga weyn iyo ka yar labada qayboodba waa laga daynayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma qalmo kumana habboona inaynu cid kale ku lamaanayno wuu inagu filan yahay adaabta waxaa ka mida oo saddexaad muraaqabat llahi subxaanah fallaahu mudalicun calaa jamiici khalqih waa inaad ogaataa inuu ilaahay ku eegayo sida qisada iminka aynu ka soo warramaynay dhex martay cabdillaahi bni cumar kutubu siira qaarkoodna inuu cumar ahaabay sheegaan wuxuu u yimi nin haddaynu ku celinno qofkaan af carabiga garanayn nin dhallinyaro ah oo adhi la jooga ayuu u yimi ibnu cumar wuxuu ku uhi kaalay nala afur kaalay wax nala cun buuhi waan soomanahay buui oma waxaa soomantahay buuhi wakhtigan kulul iyo meeshan qarfada adoo jooga wuxuu doonay markaa inuu tijaabiyo bal ammaanadiisa iyo wanaagga uu leeyahay markaa wuxuuhi waxaan doonayaa arigaaga inaad midna siiso mid naga iibisa buuhi mid naga iibiso si aan weliba aada noola cunto oo aada ugu afurto galabta melihiyo waxale buuhi ninkii sayidkayga ahaa waxaad ku tidhaahdaa buuhi neefkaa waxa cunay bahal intuu iskaga dhaqaaqay baa wuxuu ku yidhi fa ayna allah ninkii adhiga lahaa hadduu maqan yahay ilaahay xagguu jiraa miyaanu ilaahay joogin ibnu cumar intuu ooyay buu ereygii ku celceliyay fa ayna allah ilaahay xagguu jooga ilaahay macnaa ninkaa ereygaa uu ku dhawaaqay ayaa aada iyo aada u cajabgeliya u soo dhoweeyey wax qiimo badanna ahaa qisada waxay tilmaamaysaa inuu cabdillaahi ibnu cumar ninkii baadi doonay kadibna uu soo iibsaday adhigii iyo ninkii addoonka ahaaba intii uu lacag badan u dhigay oo uu ku nacsiiye ninkii lahaa kadibna waa xoreeyey ninkii addoonka ah isagoo ugu abaalgudaya khayrku sameeyey iyo muraaqabadiisa siduu isha ilaahay isaga eegaya subxaana wa tacaala arrintani waa arrin aan badnayn casrigan inuu qofku isha bani aadamka iska eega mooyaane iyo isha sharciga inuu isha ilaahay iska eegaa insaanka hadda kuma badna waxaa jira inaynu ogaano wasaa'ilu lmuraaqaba inaad ogaato weeya meelaha lagaa soo eegayo kow waa caynullah ishii ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uurka ku jira iyo waxaa oogadaada ka muuqda labaduba waa iskugu mid rabbi subxaana wa tacaala alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir dee waabu ku abuuree sideenu ku ogeyn waxaynu ogaanaynaa malaa'ig uu inoo diray inay jirto on shaqo kaleba lahayn innaga un mooyaane maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wuxuu ku dhawaaqaba malag baa eegaya oo tirinaya aduu haddaad meel kale u shaqo tagta iyaguna innaga inoo soo shaqo tegeen marka qofka isla malaa'igtu wixii ay kaa qorayeen bal ka fiirso waxuun odhan maayo waa inaad ku xisaabtantaa naftaadu lawaama ma tahay oo markaad xumaan samaynayso naftu ma ku canaanataa mise way kugu dhiirisaa marka annafsu lawaama ee qur-aanku uu sheegay nafta qofka canaananaysa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha ku eegaya waxaa ka mid ah acdaa'uk xubnahaagaa kugu markhaati kacaya xubnaheennu waa markhaatiyaday ka mid yihin qur-aanka ilaahay uu ku xusay markuu qofku qiyaamaha diido markhaatiyadii kaloo dhan ilaahay isagu markhaati isaga dhigaya alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun afkii baa la xidhayaa xubniba hadlaya aniga waxaasuu igu qabtay anna waxaasuu igu sameeyey
meel waliba way hadlaysaa ka fiirso waxa aynu ogsoonnahay muraaqabada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka isha ilaahay iska eegi waaya fadeexada la u taagan bani ubayriq nimanka la odhan jiray qisadooda suuratu nisaa ay ka warrantay haddaad dhegaysato waad garan karaysaa siduu ilaahay qofka u fadeexadaynayo waa niman waxay ahayn qoyska tuugada iyo waxaa ku yara dhaqmo oo madiina deganaa waxay xadeen dad bay xoolo ka xadeen niman yuhuudana way ku masabideen odayaashoodiina way ergey u dirteen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay leeyihin waxaan maanaan xadina yuhuudigaasaa xade ha la saaro yuhuudigaasaa looma ooyaane aan saarna bay yidhaah qur-aan dhan baaba soo degayba iyagiina lagu eedaynayo ciddii ay ku been abuurteenna lagu beri yeelayo qur-aanka 3 meelood buu kusoo noqdaa ereyga raqiib macnaheedu waxa weeyaan inaynu ogsoonaano ilaahay inuu ina eegayo subxaanahu wa tacaala salafuna saalix iyo dadkeennii wanaagsanaa qofka ay ogaadaan in arrintaasi ay ku weyn tahay oo ilaahay uu iska eegayo subxaanahu wa tacaala cabsida alle ay ku jirto oo xagga alle uu iska eegayo aad bay ugu hanweynaayeen cumar ibnu khadaab habeenada ka mida ayaa isagoo magaalada madiina eegaya axwaasheedii iyo dhibaatada ka jirta u kuurgalaya way ku dhowaan jireen mujtamaca si ay warka dhabtaa u helaan oo aan waxuun loogu warinin ayaa wuxuu maqlay dee xaafaduna bangalooyinka waaweyn iyo waxaa ma ahayna buul yar baahaano qofka markaad ag maraysa aad warkiisa maqlayso ruux dumaroo gabayaysa buu maqlay oo waxay leedahay alaa taala haada alleylu waswada jaanibu wa araqanii an laa khaliila ulaacibu فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه معناه هذا وحويا هداني عبسيده إلهي جرين يعري حمد دنبغا لغا دخلي كرو يا انيغو إلهي كعبسنيه سبحانه وتعالى نينكا يجين حق دوريا عاون سينيسن لها ايا وركو كسوروريا نينكيدي مدة دheer ka maqnaa guriga waa calaamadiyay kadibna waa la waraystay wuxuu kamid yahay baalay mujaahidiintii muddo maqnaa ninkaas go'aan buu gaaray Umar ولله gabadhaas waa gabadh wanaagsan warka ay sheegtayna waxaan ku qaraar qaatay colku markuu inta maqnaado 4 bilood 3 bilood in la soo bedelo colkii hore oo ku kala lagu bedelo si aanay raggu dumarkooda ka badan 3 bilood 4 bilood aanay ka maqnaanin waxa kale inuu ogsoonahay inantii marar badan qisadeeda maqasheen Umar uu iyadana dhageystay habeenimo ee hooyadeeda tidcaanaha biye ay tiri Umar uu mamnuucay caanaha la barxo tee Umar inama arkay ilaahay baa ina arkaya Umar hadii uu Umar inama arkay ilaahay waxay leedahay Umar inama arkay caanaha biyo hooyadii hadaan Umar ina arkaynin ilaahay baa ina arkaya bay leedahay inantuna waxa uu guriyay namadiisa mid kamid oo awlaadeedii faraceedii waxa ka soo baxay baa la yiraahdaa boqorkii caadilka ahaa Umar ibn Abdul Aziz إلا قفك دونتا وناكسنا دينتا كفي عن ولا دورتا قصص كاو حكم إذا الروح دمراء أيا سيدا ومركا ابن جوزي كتاب كيس صفوة كصان قيل عن الأسمعي نيرميا قبر شو كان صدا يا مدونين وحمان كسمايو كدبنا وآد بو مسلح لا وحكو صادري meel cidlaa baynu joognaa cid alla cid in arkaysaa ma jirto illa alkawaakib xidigaha mooyaane yaawa cidlaynu taaganahay cid in arkaysaa waa xidigaha umid ayuu leeyahay xidiguna waxba inaga sheegi maayaan marka xumaanta aan sameeyno waxay leedahay fa ayna ida lam yarana illa alkawaakib fa ayna almukawkib hadaanay kawaakibtii xidigaha mooyaa wax kale in arkayn إلهي حدقها أبو ريميه سيدي بانيكي كيغا جوكسدا إلهي كيغا بدبادية معاصي يساك الله أفراد نمبا روح دمر أبو قرسيامي يراه وقرين جري لكن حاسكي سوى يوغي حاسكي سوى حيكور هيسي إن قوري هالكا ساقباري ودقنتاي نيكي سيدك دقاب وردنتاي لكن قباري الدنبا وفراي
horena may ogeyn markaa gabadhii hore tii bay raadsatay markii dhaxalka ay gaadhay oo la kulantay oo waraysatay ninkaasi soo xaasumaadayn soo ma ogid inuu dhintay dhaxalkii qaybtaadii waan ku hayaa ila labadeena wada qaybsanayne waxay tiri aad baad u mahadsan tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan ka dhicinayaa dhaxalka ma jiree uu ifuray marka labadooda waxaad arkaysaa in ilaahay iska eegaya subxaanahu wa ta'ala oo tan horena ma odhan intii dee suuqa madow ahayd uu qarsanayay dhaxalkii ka qaad tii kalena ma odhan in haba ku furay kol haday kuula timi ka qaado idan wixii aad ilaahay daraadii uga tagto bedel khayr qaba ilaahay adoon ka siinaya subxaanahu wa ta'ala taariikhda wanaagsanna waa ku galaya marka qadiyadaasi oo maanta inagu yar waxyaabaha ilaahay lagaga edabsanayay ka mid tahay inuu qofku xisaabtamo anna cayna allahi naadiratun ilayh ishii ilaahayna hayso qofka muuminkaana intaa wuu kaga duwan yahay qofkaan iimaanka lahayn waxaa ka mid a waxyaabaha inuu ilaahay kaga edabsanayna alisticaanatu billaah wax kastoo inagu adkaada awoodeenna iyo aqoonteenna inaynaan isbidine ilaahay aynu la garabsanaynu la kaashanno ida istacanta fastacin billaah إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نبي عليه الصلاة والسلام أصحابي قال مركو الله تلينا يسوق إننا إنه كل مدنا إننا إنه لا مدنا وحول الله مركات عيد وحويدي سنة إلهي ويديس مركات عيد قرقار ويدي سنة إلهي كلي ويديس سبحانه وتعالى أسباب توالله إيمان يسايا وحي دلالة لكن مر والبا دعاء دلالك داعد نمضى ولا اسكت دريا سي وحي نوهر قلاني وهاقاقان أدابته وحا كميدا محبة الله إلهي إنا ينعذ والبكا جعله نفتاذا وبتكاغا إهلكاغا أولاداذا وحي إلهي لحيدين عذ والبكا والرئيسي هذا إلهي تعيش والعذ والبكا تعيش هاي واتكا إذبستي هذيك لا إذا بمجرته والذين آمنوا أشد حبا لله إلهي نوكو أمانا وحدتك إيمانك له يقوم بإلهي عذ والبكا جعل أدابته وحا كميدا تعظيم شعائره إنا ينوينينه وحو إلهي وينيه سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دينت إلهي قيبه هذا ووين الله وينيه وحي شيغي سائنو إلهي كعب صنع يقف قاسي أدابت وحكم إذا الغضب إذا تهكت حرمات الله مركا دينت إلهي ما لقد عائنا إنه ألا درادي وعرونه هذا تريركي إنه هناسي صوت حولها أو هناسي صوت نفتا أو هناسي صوت عرونيس ودي لها يعرون وإذا محي شيء جيسا إن ضدك كلا أدب في عن كلنا شيء لكن أنا دي لها أدب في عن كلنا علين تاسي هالكي تاجنت إنك قار ما يدك تيفية ده صافر استاني جنبر كيسوف فلاني وحسك شيء أو استفاعا ومرك النفط وذا ريركو وذا حسب جودي الدولة وذا حلقة شيء مرك إلهي وحلقة شيء أما النبي أما دينته عد صور دقاقدار رقانسة تاويرت ما بضنا التأدب مع الله قدر كاستياده وحوي التوكل عليه إن إلهي تلسارنه والتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه نبينا عليه الصلاة والسلام وحول الله هداء إلهي تلسارن لها إذن تلسارشد لبتا لرزقتم كما يرزق طير تغدو خماصا وتروح بطانا أرساقد أولتين ورديسان وهي معناه أرساقد ضدك كؤرق إلهي ما يدين فضودين لا سيد شمبرها بوفودي يجو قاتشي سنة وي كلهان يجو درك سنة وي صار نقدان هكو كيدو يالله هر الله يشقت تجين أسباب وحكم إذا وحيابها إنه إلهي كجيد بسنة الرضا بقضاء الله إنه إلهي وحي ونقدروا ينقر شيء هالك النقنو ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال واقعي أما كاقعي ليابكي بودكي قيلدي وحي كترجميان إن هذه إلهي كحشون سبحانه وتعالى يا كل هذه إلهي ما اسكك عليه عدو ولمن حق بيقول هذا وحي إلا ذين ما مرته النبي عليه الصلاة والسلام مركا مصيبة ضايعة وحولها وحتى لا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي وحول الله وحي أوقات يوحي بحي الله وضبا حال الله قبصنا يا وحي أوقات دو وحكا قاضا وحكوها رونيك
انت لورنا أمانة يقول هذا انت نوابا سيها يا الحمد لله انت هذا بدن يسلا آيات وأين بريس أنك إلهي بأسك كايله إنا لله بسجانا وآخرة ونقرنا كل يبلك على هاري مايو وأرن آنو لهين قفكي بلا إيمان ما لها أرن قدرك إلهي رالك وما هي وقادم وابا كل عنصر هذا نسيواشا إلهي إنه سين وجد بسنة وحكم إذا الحلف بالله إنه إسجا كلي كدارن وريركي إنه يحرف فركاج يقول يحرلها جايو وحاصلنا أتسكت يسكرات كدارنيس لأنه حلقو دارتها وحي أكتاد أقوين أكتنا يا أقوين إلهي سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قفك دارنا يا إلهي أكو دارتو هديك لا هايسكا آمس يوحن كهدلنا أذابت وحكم ذاك وبيتبنا شكر الله سبحانه إنه إلهي أمهدنا غرام هدي وحي إلهي وكسيو أذافك سيتك تودي من سوى إذا أتكا مستشكر جيسة توبك قاضبة هديك لنا وكو كردين إلا واحد ديبت متشره وإنه قد داقي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد marka qofka la xalasiyo wuxuu ka dhigaa waxan wuxuu iska leeyo caadiya kadibna hebel gaar intana uu ilaawaa intaas waxay ku dhaafinaysaa intaad hayso ilaahayna kabaad edabsanin laakiin si uu kuugu kordhiyo ajrina aad u hesho iyo amaan shukri waa laga maarmaan qof walibana wuxuu hayaa ka badan wuxuu doonayo waxa kamid ah ta'addubu ma'a Allah at-tawbatu ilayhi inaynu u toobad keeno ha isqancinin ha oran cibaado badan baad sameeysaa quruur yu kugu dhicin shaydaanku yu ka faa'iideysanin dambigaad sameynaysaa uu badan yahay mar walba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo jiray salaada aad arkaysa qiimaha badan markaynu ka baxno maxaynu leenahay astaghfirullah awwal kalma ba'da salaam marka salaada ka baxda kelmadda u horeysa waa saddex jeer baad istighfaar oranaysa oo salaad baad ka soo baxday istighfaartu maxay dambigaad ku jirtay waa maxay macnaheedu waxa weeye ilaahay sidii haboonayd kuumaan caabudine kulay waxba isweydaarto waan yar xawilmay mararka qaar kooda ilaahay iga dhaaf sidii aad kugu haboonayd inaan ku caabudo oo aan kugu soo jeesto waxba ka sinooday marka hadii waqtigii aad ugu fiicneed ilaahay hor taagneed lagu yiri istighfaar raaci maxaad u malay waqtiyada kalena dambigeenu aad buu badan yahay قول iyo ficil iyo qalbi waxaynu idadaan isayna kala kacsan markaas ilaahay uu noo ururiyo noo toosiyo waxa laga maarmaana inaynu dhaqankeena u badino tawbada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam tusaalo inoogu ahaa ilaahayna wuxuu faray fi suurati idha jaa inuu noloshiisa ku soo gabagabeeyay istighfaarta ilaahayna quraanka waa ku amaanay mu'miniinta inay yihiin kuwa in fara badan ilaahay u toobad keena يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة نبينا عليه الصلاة والسلام وحولها مالنتي بقول شربان إلهي وتوبت كانا تويدو الدم بيجي هريه كيد ما بلغ ناف إذن كنا إلهي وتوبت كانا مركز دعاء هي توبت كان كي وين ورد جينا قدرنا لما دقلين با يا وقت والبا الحصص توحي كان عيدا مركز توبتنا واجب أيه كنت أضامها كل هدو إلى هاي أمر كبحي توبوا إلى الله توبة نصوحة كولا ليال قفك قيمها بدن مؤمن كهاي الشرع إنه أمانة دورية طبعا كاي إن كلا بدن أو أينان حسين أيو إلهي كرادق ما آدابه الرمها مرك قفك لجهره أيو قروح سنانا يا إلهي حقي سيسي وما ذكرنا حق وذي لجرتين يا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه